waddanka Algeria ayaa mar kale gafiya meelka dacweyn ku sameeyay dawladda Soomaaliya. madaxweynaha waddanka Algeria oo ah waddan dhaca ama ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, Cabdilmajiid Taabuun, oo ka hadlaya xaaladda adag ee dalka Liibiya gaar ahaan dagaalada ka socda gudaha dalkaasi, ayaa mar kale si cad ugu gafay dalka Soomaaliya. Cabdilmajiid Taabuun oo shalay hadal siiyay warbaahinta ayaa soo qaatay tusaale uu ku liidayo Soomaaliya, isagoo ka digay xaaladda uu ku socdo dalka Liibiya iyo faragelinta shisheeye oo ku tilmaamay inay dalka Liibiya ka dhigayso Soomaaliyada cusub oo kale. madaxweynaha Algeria ayaa tilmaamay in la wada ogyahay xaaladda Soomaaliya, Liibiyana haatan ay ku socoto tubtaas oo kale, waa sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in qabiilada Liibiya haatan la hubeynayo iyadoo dana gaar laga leeyahay si ay dagaalada dalkaas ka socda qayb uga noqdaan. Hubaynta beelaha Liibiya waxa ay ka dhigaysaa Liibiya Soomaaliyada cusub oo kale, ayuu yiri madaxweynaha dalka Algeria. waa markii labaad ee dalka Algeria uu si cad ugu gafayo dalka Soomaaliya, iyadoona dhowaan wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Sabri Buukadum oo la hadlayay warbaahiyaasha oo isna tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya, isagoo xilligaas ka hadlayay isla xaaladda dalka Liibiya hadda marayo. weli dawladda Soomaaliya kama aysan jawaabin hadallada xanaftana ee ka soo yeeraya dhowaanahan dambe madaxda waddanka Algeria oo ah mid ka mid ah wadamada dhaca waqooyiga qaaradda Afrika. si kastaba ha ahaatee, ma aha kaliya dalkan oo kaliya wadamada tusaalaha foosha xun u soo qaatay waddanka Soomaaliya, waxaana jira dalal kale oo dalka Soomaaliya tusaale xun u soo qaatay isla markaana si fool xun ugu gafay, sida waxa ka mid ah wadamadaas waddanka Uganda iyo Mareykanka oo madaxweynayaashoodu ay tusaalooyin aan wanaagsanayn ka bixiyeen dalka Soomaaliya.